komishanka doorashooyinka qaranka ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen xaruntooda waxa ay ku sheegeen in hawlihii codbixinta doorashada ay haatan si wanaagsan u socoto isla markaasina waxa dhibaato iyo caqabadii aanay jirin gacantana ay ku hayaan natiijadana ay soo saari doonaan waxaana geesta kale ugu baaqeen shacbiga reer Somaliland in guushii taariikhiga ahayd ee Somaliland ay ku tallaabsatay iyo tacabkii aynu gelinay sidii doorasho xor ah oo xalaalihii ay dalka uga dhici lahayd oo nabadgelyo ah aanay tacabkaasi dadka reer Somaliland khasaarin gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka Cabdilqaadir Iimaan oo isagu shirkaasi jaraa'idii ka hadlay waxa uu tilmaamay in rabshadahaasi ay dhaawac ku keenayaan sumcaddii ay beesha caalamka ka kasbatay jamhuuriyadda Somaliland waxaanu dadweynaha shacabka Somaliland u soo jeedinaynaa marka hore komishanka doorashooyinka qaranku inay u soo dhamaatay badankeeda goboladii tiradii lagu waday ee la tirinayay codadkii lagu dhiibtay isniintii aan soo dhaafnay waa mid ilaahay loogu xamdi noqo waxa halkan aad ku arkaysaan 4 commissioner shanaadna wuu soo galay marka waxa naga maqan laba commissioner oo iyaguna bari subax soo galaya siyaasay hawshii ugu soo maxayday dhawaatay waxaanu maxayday wargelinayna cid kasta oo ka cabanaysa xisbi kasta oo ka cabanaya anagoo wali natiijadii soo saarin xisbi kasta oo cabasho qaba cabashadiisa waanu dhag furaynaa sidaan horaba aanu cabashadiina idinka aqbali jirnay loo wada tashan jiray waxaanu diyaar u nahay cabasho kasta albaabadayaduna way idin furan yihiin inaad keentaan la timaadaan oo waagu inoo bariyo oo bari subax aynu isu nimaadno ciddii cabasho qabta dadweynaha waxaanu sheegaynaa in la istajiyo uma baahnin waqtigan inuu weeli naga dhinto waxaynu u baahanay inaan wada tashanno waxaynu u baahanay doorashadii quruxda badnayd ee inoo dhamaatay ee sida quruxda badan inoogu soo dhamaatay inaynu natiijadeedana wada sugno wali commissionka kama soo bixin ilaa la isu yimaado natiijooyinka degmooyinkii la keeno gobolada lagu soo xareeyo halkan lagu soo xareeyo markaas baynu natiijada sheegaynaa wixii sharcigu waafaqsan ee maxayde cabasho ah diyaar baanu nahay inaanu xalino diyaar baanu idin nahay cid kasta oo qabta waxaad ogtihiin doorashadan in doorasho casri ahayd waxaad ogtihiin in doorasho maxayde la adkeeyay ahayd systemkeeda iyo habkeeda waxaanu markaa faraynaa ama u sheegaynaa saddexda xisbi qaranba inay ku kalsoonaadaan oo kalsoonidii ay hore noo siiyeen in ku wada shaqaynaynay ay kalsoonidii halka ka sii wadaan gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka Cabdilqaadir Iimaan geesta kale waxa uu tibaaxay in warqadaha codbixinta ee fuutiriga ah isla markaasina qaar ka mid ah mas'uuliyiinta axsaabtu ay sheegeen in ay hayaan ay tahay mid been abuura isla markaasina gacantooda ay ku jirtay markastaba si weyn loo ilaalinayay suurtagal aanay ahayn in warqado codbixineed ay dibadda uga baxaan isaga oo sheegay intaasi aanay ka hadhi doonin tahayna waxyeello qaranka guud ahaan loo geystay isla markaasina cidda ay ka soo baxday caddaynteeda laga rabo sharcigana ay la tiigsan doonaan waxaanu kaloo oo maqlaynaa ama laga soo daayay TV-yada qaarkood in la leeyahay waraaqa maxayday ku subasho ama waraaqa saayida meel laga helay oo TV-yada la soo dhigay taas waxba kama jiraan waxa nooc kasta ha noqoto waxba kama jiraan lamana arki karayn labana maxayday daabacan karayn labana maxayday forjar karayn karayn taa waxaanu ka qabnaa dacwo adag sharcigaananu ka qabnaa hadday annakana fuushanay in maxayday sharciga la mariyo haddii qofkii keenayna ka hadhi mayno sharcigaanu marinaynaa qofka soo dhigay yidhi waraaq codbixineed ayaan helay oo lasoo forjargareeyey wuxuu ku gafay qaranka wuxuu u gafayna dadka waxaanu ku gafay caqliyadda commissionkana wuu ku gafay marka taa waxaanu ka qabnaa dacwo weyn waana kama hadhaynay waanu la tiigsan doonaa maxayday sharciga laakiinse waxaanu dadweynaha u sheegaynaa oo aan mar kasta ku celinaynaa ha la istajiyo weli waxba nagamay soo bixin annaka wixii soo baxana waad helaysaan sidaas iyo habeen wanaagsan
iyo inakoo berri isu waaberiysana oo berri aynu wixii cabasho ah aanu maxayda qaabilno albaabadayadu way idiin furan yihiin sidii horeba idinku furnaayeen waxaanu wada tashi midnaa waa diyaar baanu nahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu